والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد waxaan ku soo jirnay muxaadaradan midii ka horeysay ka hadlida aan ka hadlaynay qofku carabkiisa inuu ilaaliyo marka carabka in la ilaaliyo qofka musalliga uu ilaaliyo aad baa loo doonayaa siiba in laga ilaaliyo waxyaalaha inta badan dadku ay la yimaadaan oo qiibada kamid ah xanka marka xankaasi waxyaalaha soomka thawaabkiisa burinaya ayuu kamid yahay marka xanka khatarnimadiisi markii la eego ee waliba soomka gudihiisa ku dhacaya asagoo dhinac walbaba aad khatar u ah waxa kamid ah xadiis imaamu axmed uu wariyay waxa xadiiska ku sugnaa xadiiska marka waxa wariyay imaamu axmed ibnu abi dunya abu ya'la ragaasi marka waxay ka wariyeen nin asxaabta kamid oo nabiga kaleey salaatu wasalaam mawla u ahaa oo nabiga mawalidiisa kamid ahaa ninkaas ayay waxay ka wariyeen inuu yiri أن امرأتين قصامتا لبنا قد واي صومين بوي النبي وقتي سبا لبد مريه صومين وأن رجلا قال يا رسول الله إنها هنا امرأتين قصامتا نين أيا وحو يري إلهي رسول كيسيو ميشان وحا جوغو يري لبها ويرا أو صومي وإنهما قد كادتا أن تموتا من العدش لبدا هوين وحي كبدا وادي إني دنتان أون هيا دلاديس نبغو انت او شيء فاعرض عنه او سكت نبغو marka wuu ka jeestay ama waa uu aamusay washaku min raawi ninkii uma jawaabin thumma aada ninkii baa nabiga ku soo noqday arinta waxa ka sheekeynaya kii nabiga mawlaha u ahaa wa uraahu qala bil haajira marka raawigi baa wuxuu leeyahay mid ruwaada kamid oo shakigu uu galay waxaan u maleynaya inuu yiri nabiga wuxuu ku soo noqday bil haajirati waqtiga harsimada oo waqtiga maalintu kala barkasa oo qoraxdu ay daran tahay marka dumarkaasina oon waxayba u dhimanaya iyadoo xilliga aan la gaarino farqanimada hore ama subaxnimada hore ayaa oonka xadlaafka ay qabtay qala ya nabiy allah innahuma qad matata aw kadata an tamuta marka wuxuu ilaahay nabigiisiyo labadii dumarka ahayd oo awalan ku sheegay wayba dhinteen ama inay dhintaan bayba ku dhawaadeen waa shaku min raawi adigu waa ku shakinaya labada lafdi ninku midku yiri ku ahaa waaba dhinteen miyuu yiri mase inay dhintaan laakiin markuu leeyahay waaba dhinteen laftigeeda warka dambe ku macnata waxa weeye waa dad nafti ku sii yartahay oo khatar ba inay geeriyoodaan waa qala ud'uhuma marka nabigu wuxuu yiri iigu yeer buu yiri waaka marka qad maatata aw kadata anta muusa inuu asagu yirina waaba dhici ka dhaw lafdigu shaki uu sanahayn قال مركا النبي وحو يري ادعوهما لبدودي igu yeer قال مركا وحو يري نينكي فجاءتا مركا قال النبي وحو يري ادعوهما لبدودي igu yeer بو مركا قال فجاءتا قال مركا وحو يري waa ninkii xadiiska ka waramaayay oo mawla rasuulillaah aha فجاءتا labadii haweenadu way yimaadeen buu yiri قال وحو يري مركا waa kii saxaabigii warinaya sheegay faji'a waxaa loola yimid biqadaxin weel baa nabiga loo keenay aw amase usuguna marka waa weel weyn qadax waxaa loo isticmaalaa weel sharaabka lagu cabo usuguna sidaas oo kale weel weyn weey oo sidii toobkiyo wixii la mid ah faqala li ahadihima labadii haween midkood buu nabigu wuxuu ku yiri matag buu nabigu yiri faqaat marka waxay matagtay qayhan wa daman wa sadidan wa lahman malax iyo dhiig iyo carun iyo hilib hatta malaat nisfal qadah ila ay ka buuxiso weelkii barkiisi waa weelka waa weel weyn oo sharaabkii lagu cabo sharaabiyada ay ku shubtaan thumma qala lil ukhra midii kalu nabigu wuxuu ku yiri adiguna matag buu yiri faqaat marka waxay matagtay min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmin abidin wa ghayri malax iyo dhiig iyo carun iyo hilib عبيد وطري هلب عصب سيدي واحد دير لعوني او كلا هي وغيري غيري حتى ملأت القدح الى حيلدي اي كبوحسو ثم قال مركا النبي وحو يري الى ويلكي اي كبوحسو او مركا النبي او يري كوخ قاعه ثم قال مركا النبي وحو يري ان هاتين لبدان دمركاهي
صامتا وحي كصومين عما أحل الله لهما وحي إلهي أبني وأفطرتا وحي كأفر على ما حرم الله عليهما وحي إلهي كحرمي أي كأفر جلست إحداهما مدود وي فريسة إلى الأخرى مدك لي أفريسة جلست إحداهما إلى الأخرى مدود مدك لأي لا فريسة فجعلتا مركا وحي تأكلان من لحوم الناس dadka hilbiisa inay cunayaan subaxii bay markii waagu u bari waxay ku dhaqaajiyeen maanta oo dhan dad bay jarhayaan oo saako dhan bay sheegayaan marka nabigu muxuu ku tilmaamay wuxuu yiri waxay ka soomeen wixii ilaahay u baneeyay macnaha wixii awal u banaana ila qofku inuu wax cuno iyo inuu cabaa way u banaanay taa way ka soomeen markaas ay waxay ku afureen waxaan horey gadaal midna aan u banaanay oo waa maxay waxankii way marka qofku inuu iska ilaaliyo wax awqaadda qaarkood ama awqaadda mucdamkoodiba banaanaan jiray ee marka uu la yimaado waxa waligiiba loo ogolay oo kale wax aad iyo aad la yaab ah way marka sidaas marka waxa la rabaa yani waa waxa in badan insaanku uu ku dhaco in la iska ilaaliyo qofku markuu sooman yahay dadka wax ku sheegaysa inuu iska ilaaliyo qiibada iyo oo ilaa waxyaalihii banaana oo la ogolaa waxaan ahayn inuu san samaynin marka hadda qoladaan waxa ka muuqata bal fiiri hilib laftigiisibay ayagii matageen iyo carunkii waxyaalaha waa mid hadda ilaahay markuu naga reebayo oo ku tilmaamay yani xamashada oo ilaahay aayadu ku lahaa wala yaqtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu qaarkiin qaarka kale yuusan xamanin midkiin ma jecel yahay walaalkii hilibkiisa inuu cuno asagoo baktiyay oo bakti ah fakaritumu marka taa waa nacaysaan baa nabigu waxaad nacaysaano aad kaanaysaan oo aadiidantihiin way marka arrintii ilaahay uu ku sheego ku shabahay sidii qofka xamanaya inuu hilibkiisa cunayo oo kale ayadii oo bil xaqiiqada ayaga looga dhig marka hadda waxaad arkaysaa dad badan oo maanta wax xamanaya jira sida dumarkaas oo kalena aysan ku dhicin dumarka nabiga kaleey salaatu wasalaam muslimiintu rumaysa kamid aha ayaga arrintaani marka waxay ugu dhacday waa la waaninahay waak nabiga fadligiisa baa lagu waaninahay marka waana ilaahay ayaga waxa weeye dambigii ay sameeyeen si aysan mar labaad ugu noqonin hadda ka hor xadiis waxaa jiray nin dambi sameeyay ayaa la aasay markii la aasaba waxa soo tuura qabriga waxa la arkaa hadii la aasaba soo banaanka yaala dhowr jeer nabiga loo sheegay hal la aasay markii la aasaba ninkii oo banaanka yaal baa la arkaa markaas nabigu wuxuu yiri innal arda taqbalu man huwa sharrun minhu walakin allaha arada an ya'idakum dhulku wuxuu ogolaadaa buu yiri qofka dambi badan laakiin ilaahay baa wuxuu doonay inuu adinka idin waaniyo oo dambiga inayna u noqon marka hadda waxa weeye naaga ka shar badan baa jira ayo asxaabu rasuulilaahi bay kamid ahaayeen oo mar walba falka ku kacay laakiin arrintan ilaahay wuxuu uga muujiyay in ayagana la waaniyo dadka kale muslimiinta ah oo waaqacada arkaya ama maqlayna lagu waaniyo waayahay marka dad badan ma mararka qaarkood waxay yiraahdaan kuwa dhibaatooyinka sameeynayo muslimiintii laynahayo hadday rabaan qubuuraha qufahayo dad awliyaa iyo laga yaabo in dadka qaarkood isiraadaan hadda awliyadu kalaamo iyo khayr waxyaalo ma dadkan maxaa dhibaato loogu soo meesha waxa ku jira hadda ilaahay kuwaas ma doono inuu waaniyo waxa laga yaabaa in ilaahay intiisa wax khayr baysa u jirin la rabo inay ku jiraan gayigoodaas iyo baadidoodaas iyo xumaantoodaas naftooda ay u zinayso laakiin qofka la waaninayo oo waxyaalo ku cibra qaata la tusayo waa qof la rabo weey waxa kale oo jira qisa iyaduna midaas oo kale u dhow oo sheekha la yiraahdo Abu Daawud at-Tayalisi Abu Daawud kan sunan kala ma aha waa nin kale oo muhaddith waliba waa ka horeeyay kitaabkiisa musnadka wuxuu ku wariyay iyo ibnu Abi Dunya saasan maray inuu ka horeeyay waa uu ka horeeyay ibnu Abi Dunya asna wuxuu ku wariyay kitaabkiisa Damul Ghibati wal la yiraahdo oo xanka haydalaysu kitaabka ku alif bay haqina xadiidka waa wariyay Anas waxay ka wariyeen qaala Anas inuu yiri amara an-nabiyyu an-nasa bi sawmi yawm nabiga ayaa dadka wuxuu faray maalin inay soomaan وقال الله يفطر أحد منكم حتى آذن له نبغو وحيد مد أذنك إذن كمده يوصل أفورين بوي إلى أن وعنو إذنه معلم بوي بل ما انتهى الله صلى الله عليه فصام الناس ضد كيبا صومي حتى إذا أمسوا مركي قلبايستين فجعل الرجل يجيء مركا نينك استوحيك كمده وحو أها يجيء النبي ينو إيمانها يو فيقول إن أرنا يا رسول الله إلهي رسول جيسيو إني ضللت صائما فأذن لي إلهي رسول جيسو عنوغو وحانا هذا متكي صومن بانا هذا أقلو
oo fa ufdiru markaa aan afuro fayaadanu lahu nabigu markaa wuu idinahay wuu ogolaanahay xataa jaa rajulun ilaa nin ka yimaado faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ilahay rasuulkiisiyo fataataani laba gabdhoodoo inama ah oo dhalinyaro ah oo min ahlika eheladaada ka mid a dallataa saa'imatay nebiyo waxay ahaayeen kuwii sooman wa inahumaa labadoodii tastaxyaani waxay ka xishoonahayaan oo ay ka sariiganahayaan an ta'tiyaaka inay ku yimaadaan ee fa'dan lahumaa nebiyo u fasax faltufdira ha afuraan marka ha afuraane u fasax fa acrada canhu nebigu marka ninkii waa ka jeestay arrin kaluu dumarkaan ku ogaa huma caawadahu ninkii nebigiibuu kusoo noqday warkiibuu kusoo celiyay haddana fa acrada canhu nebigu markaa waa uu ka jeestay marka huma caawadahu haddana nebigiibuu kusoo noqday fa acrada canhu miya nebigu marka waa ka jeestay faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi inahumaa labadoodii lam tasuumaa labadaa dumarkaa ima aanay soomin wa kayfa saama sidee buu u soomay man yaakulu luxuuma annaasi qof cunahaya dadka hilbihiisi idhab labadoodii tag famurhumaa waxaad fartaa wa in kaanataa saa'imatayni laba soomanba hadday rabaan ha ahaadeene oo soomanaaba ha yidhaahdeene ilaa soomkii hadda soom ahaan u buri mahayo tawaabkiisi waa buree falyastaqiya ha ismatajiyeen far xilliga afurkiina waa la joogaa farajaca ilayhimaa labadoodii buu u noqday fa akhbarahumaa warkii nebiguu u sheegay fastaqaa'ataa way ismatajiyeen faqaa'at kullu waaxidatin mid walba waxay matagtay calqatan min damin xinjir oo dhiigay matagtay waa qiso kale waantii hor ahayd farajaca ila nabiyi nebigiibuu arrintii u sheegay sala allahu alayhi nebigiibuu u noqday ninkii farajaca ila nabiyi ninkii awalba warka ayaga ka keenay nebigiibuu ku noqday fa akhbarahu nebigu u sheegay wixii dhacay oo inay mid walba yani xinjiro dhiiga inay matagtay faqaala markaa nebigu wuxuu yidhi waaladii nafsu muxammadin biyadihi waxaan ku dhaaranahayaa ilaaha nafta nebi moxamed gacantiisa ay ku jirta awoodiisa law baqiyata labadaa xinjir oo ka samaysmay xamashadoodii hadday jirkooda ku hari lahaayeen fii butuunihim calooshooda hadday ku hari lahaayeen la aakalathum annaaru naartii baa cuni lahayd waa maasha allahu marka yani in xanka noocaasa la sameeya qofka muslimkaa cirdigiisa lagu fogaado danabta waaweynka badan bay kamid tahy waxaa kusugnaa xadiid abu hurayre xadiid abu daawud abu hurayre uu ka wariyay nebigu inuu yihi ina min akbari lkabaa'iri istidaalata almar'i fi cirdi rajulin muslimin bigayri xaqin dembiyada kuwa ugu waaweynanka badan waxaa kamid a qofku inuu ku dheeraado qof muslima cirdigiisa xaq la-aan inuu ugu dheeraado maanta o dhan ba waa ku dhegan yahay waa wa min alkabaa'iri asabataani bisaba dembiyada waaweyn waxaa kamid a labada yacni cay ee abaalmarin looga dhigahayo hal cay hadduu qofku hal ku caayo yani xaq waad u leedahay in adiguna mar caydo wajazaau sayi'atin sayi'atu mithluha laakin waxa weeye sayi-a abaalkeedi waa iyadoo kalea la yidhi laakiin inaad laba iyo saddex ka dhigta la ogolaan mahayo inaad iska cafisaana ku fadli badan marka sida aayadiiba aan kusoo qaadnay ilaahay qiibada marka uu xarimay qiibada marka xadkeedu waa maxay maxaan la yidhaahdaa dadka waxaa laga yaabaa qaarkood inay saxanka aqoonin waxa uu yahay xadiid muslim iyo abu daawud iyo tirmidi abu hurayre ay ka wariyeen ayaa wuxuu ahaa ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala atadruuna ma algiiba ilaahay rasuulkiisu inuu asxaabta ku yidhi ma taqaaniin oo ma ka warqabtaan waa xanku uu yahay qaaluu allahu warasuuluhu aclam waxay yidhaahdeen ilaahay iyo rasuulkiisi baa ogaa badan oo ayaga ayaa ka warqaba qaala markaa nebigu wuxuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrahu walaalkaa inaad ku sheegta wey waxa uu kahanayo qiila afara'ayta in kaana fi ma aqul bal iiga waran baa nebiga lagu yidhi walaalkay haddii uu ku sugan yahay waxa anugu aan idhi nebigu markaa wuxuu yidhi in kaana fiihi ma taqulu faqad iktaftahu waxa adugu aad tiri hadduu ku sugan yahay waad xamad wain lam yakun fiihi haddii aanu ku sugnayna faqad bahadtahu waad naftay oo markaa waa musabida marka xaku intaasu ahna ilaa 6 waxyaalood oo hadda culimadu ay soo qaadaan xanka lagu baneeyay wixii aan ahayn la ogolaan mahayo in lala yimaado oo markaa mamnuuc ay noqonayso qofku marka waa ku dambaabayo marka meeshaan ay yiraahdeen hadduu ku sugan yahay waxa anugu aan iri dadka waliba qaar baa hataa waxay moodaan haddii la iska soo horjeedo la seeraysan xan ahayn maxamana waa ku xariira oo kale yiraahdaa haddii hadda qofka asoo ka soo horjeedo la yiraahdo
waxa uu kahanaya laftigeeda waa xankiibay kamid tahay marka xankaas ayadoo waxa la isku afeeye uu yahay laakiin waa waxa dhow la isku dabagelayo un xasanaadkii iyo khayraadkii aad la imaanaysay ayaan qofku hadduusan ku cafin qiyaamaha hadii la gaaro ayaga ayaa laga goynhaya waa khayrka aad la imaanayso ayaa laga jarahayaa wixii qofka aad ku xamatay waa ilaahay marka hana soo ururiyo dembigaasi asagoo dembi aada xun ah oo nabigu calayhi salaatu wasalaam aada iyo aad dadka muslimiinta uu uga digay ama ha yaraada ama ha badnaada ee qofna aan loo ogolayn oo xataa waxyaala anagu aanan moodayn inay wax weynan badan yihiin laftigeedi aada arkayso shareecadii islaamku inay diidayso oo markaa la leeyahay ha laga fogaada lama ogola waxaa jirtay caaisho xadiis oo hadda sunankaad arkay ay warinayaan ayay waxay safiya oo lala qabay waa safiya bintu xuyay bay nabiga waxay ku tiri xasbuka min safiyata annaha kada wa kada waxay tiri nebiyow safiya waxaa kaaga filan inay sidaa iyo sidaa tahay macnaa waxay uga jeedaa inay gaaban tahay safiya markii la eego haween waxay ahayd qurux badan bay marka ahayd haweenku marka waa kala masayra marka waxay damacday inay yani ku leexiso xoogaa ay in uga dhigta gaabnaanta markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi laqad qulti kalimatan law muzijat bimaai lbaxri lamazajatha nabi waxaa tiri buu yidhi hadal haddii biyaha badda lagu barxi lahayd oo hadalkaasi haddii la eego natniga iyo qurunka uu leeyahay ilahay agtiisa markii la eego baddaa weynanka badan hadii lagu dara waa bedeli lahaa waa ka dhadhankeedii u bedeli lahaa mar kalena waxay tiri waxakaytu lahu insaana qof baa nabiga u dhaajiyay tiri oo waxaan jiray siduu qofkaas yani ama socod ha noqdo ama wax kale markaasu wuxuu yihi nabigu maa uxibu anii xakaytu insaana wa ina lii kala intaa iyo intaaba yani aan hele anigu ma jecelibu inaan qof dhaajiyo laakinta laftigeeda xankiibay kamid tahay marka wax dadka la isku afeeyo weeye marka in laga fogaado laga cararo siiba marka jooga bisha ramadaan ayada waxaa usii gaara hadda tawaabkii ramadaanku kaa burinayo ibnu abi shayba cumar ibnu khadaab wuxuu ka wariyey inuu yidhi laysa asiyaamu min asharaabi waalطacaami waxdah walakinahu min alkadibi waalbaadili wallagwi soomku yani ma aha waxa laga afaysanhayaa cabitaanka iyo cunada keliya ma aha ee waxa weeye beenta iyo baadilka iyo lagwiga hadalkaasoo kale haddana cadina wuu ka wariyey ibnu abi shayba ibnu abi shayba wuxuu kaloo ka wariyey jaabir binu cabdillahi isagu in badan buu soo qaadaa muxadidkaasi asarta asxaabta jaabir binu cabdillahi inuu yidhi idaa sumta falyasum samcuka wa basaruka haddii aada soomto falyasum ha sooma samcuka maqalkaagu ha soomo wa basaruka araggaagu ha soomo wa lisaanuka carabkaagu ha soomo can ilkadibi beentii ha ka soomo waalmacthami dembigii xibnahaaga oo dhan ka soomo wadacada alkhadabi kuwa adiga kuwa adeega dhibkooda ka tag maalintaas soomanta iyadoo waktiga kaleba aan la ogolayn ha dhibin khaadimiintaada dadka gurigaaga ama shaqaalaha noqdo ama hadda addooma leedahay ama xataa xaaska laftigiisa wixii cunada kuusoo karinayo waliyakun calayka waqaarun wasakiinatu yawma siyaamika korkaaga ha ahaato deganaansho iyo xasil maalinta aada sooman tahay maalinta aada sooman tahay deganaansho iyo xasil dhacdhac ha gelin waaka isku ilaali aada isku ilaali walaa tajcal yawma fidrika wa yawma siyaamika sawaan ha ka dhigin maalinta aada afuran tahay iyo maalinta aada sooman tahay mid siman kolliba mar walba isdhowridda waa laga rabaa laakiin si gaara soomka isku sii dhowr maxaa soomku hadda waa bil cibaado badan iyo khayr badan la shaqayso haddana soomkiisa haddii tawaabkii haddii uu kaa buriro wax weyna badan baa ku dhaafahayo marka kolleyba qofka insaanka laga waayi mahayo dhacdhac weligiina dadaalka meesha ugu fiican ku taagnaan mahayo laakiin si gaara ha ka dhigin maalintaad afuran tahay iyo maalintaad sooman tahay isku si ha ka dhigin soomka dadaal gaara samee wa qaala abu darri saxaabiga abu darri la yihahdaa wuxuu yidhi idaa sumta fataxafad ma stadacta haddii wuxuu yidhi marka aada soomto intii aada awoodda is ilaali buy markaad soomanta waxaa la rabaa wa kaana abu hurayrata wa asxaabuhu idaa saamuu jalasuu fi lmajlisi wa qaaluu nutahiru siyaamana abu hurayre iyo asxaabtiisi waxay ahaayeen waa raggii talaabida ahaayo hadda cilmiga ka faaidaysan jireen markay soomaan masaajidka iska fadhiisan jireen ku ictikaafi jireen waxay oran jireen nudahiru siyaamana soomkeenaan dahirayna oo markaa waxa weeye hadduu qofku magaalada iyo suuqyada iyo meelaha dadku joogaan waxaa dhici karta soomkii inuu kasoo guro marka waxay yeeli jireen masaajida iyo meelaha cibaadada laazimi jireen waxay oran jireen soomkeenaan nadiifinaynaayo laqwi iyo rafat iyo meeshii waa meel cibaado inuu marka cibaadaysaa iska dardaro uu ka badbaado dadka mukhaaladadiisa
sheekh la yiraahdo maymuun ibnu mihraan oo kamida salafkii culimadii waaweyn oo taabiciinta inuu kamid ahaa filay sheekhaasi marka wuxuu yiri ahwalu sawmi tarku at-ta'ami wa sharabi soomka midka ugu fududay waa in cunada iyo cabitaanka la daayo oo macnaha dad baa waxay moodahayaan soom oo dhanba waxa uu dhibka badan inuu yahay cunadan iyo cabitaan la iska deeyna taasi qofka saa'imka waxa laga doonayaa waxa ugu fudud way ee waxa laga doonayaa waxa weeye jawaarixdiisu in yaani ay ka soomaan baa la rabaa xumaan oo dhan sida daraadeed sheekh Xaliim la yiraahdo wuxuu yiri oo Shaafiiciyada kamira yanbaghi lis-saa'imi midka sooman waxa ku haboon an yasuuba bi jawaarih himnihiisa inuu ka soomo waxa laga soomayaa kaliya cunada iyo cabitaan kaliya ma ximnaha oo dhan fala yamshi bi rijlihi lugtiisa ku socon maayo ilaa baadil ugu socon maayo wala yabdishu bi yadihi fi ghayri ta'ati illahi ilahi daacadiisa waxaan ahayn gacantiisa ku qaban maayo wala yudahinu mudahanayn maayo qof wax baadil ma ugu madax salaaxay maayo oo jirjira waxa wanaagsan ugu muujin maayo wala yaqda'u zamana bil ash'ari wal hikayat allati la da'ila tahtaha waqtigiisana ku goyn maayo ku baabiin maayo gabayaal iyo sheekooyin aan wax nafci lahayn iyo wanaxu dalika iyo kaasu xilamida waxyaalaha marka bishaas marka ramadaan la yiraahdo waa bil ayada xasanaadka iyo sayi'aadka gudaheeda waa lagu laalaabaa sida daraadeed waxa marka wanaagsan qofku inuu xasanaadkana yaani la yimaado sayi'aadkana ka fogaado intii awoodiisa waa ayala waxa ku sugnaa kitaab mu'jam at-tabarani la yiraahdo oo muhaddidka tabarani la yiraahdo uu leeyahay labadiisa mu'jam saddex mu'jam buu leeyahay xadiidkan marka wuxuu ku warinayaa mu'jamkiisa awsadka iyo midka sagiirka ah hani baana xadiidkaas uu ka warinaya an hani bint abi talib haweentii hani la oran jiray oo abu talib uu dhalay oo nabiga in adeertiisa ahayd qaalat haweentaasi waxay tiri qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallama inna ummati lam yakhuzu ma aqamu shahra ramadaan ilaahi rasuulkiisu wuxuu yiri ummadaydi ma duloobahayaan oo hoogi mahayaan ummadaydu hoogi mahayaan inta bisha ramadaan ay oogahayaan oo siday ahayd ay ula imaanayaan xaqeed qila ya rasuulullaahi wama khizyuhum fi idaa'ati shahri ramadaan marka waxa la ilaahi rasuulkiisiyo hooga iyo dulliga ka raacaya hadii bisha ramadaan ay dayacaan oo iqaamadii laga waayo maxay marka macnaha khizyigoodaasi muxuu yahay sida yaani ay u duloobahayaan ay u hoogahayaan qaala wuxuu yiri nabigu intaha kul muharimi fi waxa weeye waxyaalaha ilaahay uu xarimay in xurmadooda la baabi'iyo oo waxyaalaha muharimta lagu dhaco way bisha ramadaan man zana fihi aw shariba fihi khamran la'anahu Allah wa man fi as-samawati ila mithlihi min al-hawl fa imma qabla an yudrikahu ramadan lam tabqa lahu 'inda Allah hasanatun yattaqi biha an-nar nabigu wuxuu yiri qofkii ku zinaysa bisha ramadaan dhexdeedii ama khamra abba ee kabaa'irtaas waxyaalaha dambiyada waaweyn la yimaado ilaahay baa qofka lacinaya lacnada ilaahay baa ku dhacaysa wax alla wax samada ku sugan way lacinaya ilaa laga gaaro xilligiisa kale oo sanadka soo socda fa in maata qabla an yudrakahu ramadan hadii yaani uu dhinto intii ramadaankii kale uusan soo gaarin lam tabqa lahu 'inda allahi hasanatu yattaqi biha an-nar qofka yaani u harimaysa ilaahay agtiisa hasana uu naarta uga dhowsado maxay wixii khayr u la imaan lahaa ramadaankii hore dambigi xumaayo kula yimid baabiye xasanaadkiisa dhama ku burbure mid dambe marka ka bacdi uu siraawo toobadkeen u noqo oo fursadan ka faa'iideysana ma soo gaari fattaqu iska ilaaliya shahra ramadana bisha ramadaan iska ilaaliya fa innal hasanati tudaafu fihi ma la tudaafu fi ma siwa hasanaadka bisha ramadaan waa lagu laalaaba waxaan lagu laalaabayn bilaha ka soo haray wakadalika sayi'at nabi wuxuu dambiyaduna waa sidaas oo kale oo dambigana waa lagu laalaaba marka sida shariicada meelo badan laga fahmaayo waxa jira waqtiga fadliga badan iyo makaanka fadliga badan wixii khayr oo lagu sameeyana waa la laalaaba wixii dambi oo lagu sameeyo waa la laalaaba tala waxa kamid ah hadda ashul xurumka markii ilaahay uu ka hadlaayay ayad waa ka ilaahay ku oranahay yas'alunaka 'anil shahril haram qul qitalun fihi kabirun waxay ku weydiinayaan bisha xurumada u saaxiibka waa ashul xurumka marka waxa tiraahdaa in lagu dagaalama waa wax weyn waa dambi weyn dambiyada kale waa ka weyn badan yahay sida ramadaanka oo kala maana wixii kale oo ka soo haray sidoo kale markii ilaahay uu ka waramayo bilaha ayad waa tii ilaahay ku yiri إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بله هو الله بيطوان بو إلهي بلها وحا كاملة أفرتسان أشهر حرم كالإله مركا نفسي إنها كوضل مننا وأفرتا بلد قدوه دا دنبها كوسا أدا سميسان دنبها سوح النقونها يدو شبار بو يدن نقونها يايو آد بالله الله بها يا دنبها انت إلهي وضونا أيو الله بها ومضاعف ونقونها sidoo kale makaanka khayrka la waa lamid oo markii hadda ilaahay xarabka uu ka waramayo ilaahay wuxuu leeyahay waman yurid fihi bi'ilhadin bidhulmin nudhiqhu min adabin alim qofkii gudihiisa ku doona xaramka iyo bayt ilhaad qofkii ku doona inuu sida xaqa ka iisho dhulmina ugu doona nudhiqhu min adabin alim qofka waxaan dhadhasiinaynaa cadaab xanuujinay ولو محل لقى عبر حتى وحي وصمية كليا معه إيه ودوني ودمعيت قلبي جيسا مركا وقدم معي وحي إنه مركا سمية مركا واضح كيسا ضمعي كليا وحوي عقاب وين قفي وكراعه يا مركا حرم كوتشو إنه سمية وحيالها حمانتا مركا سيدا درادد إن وحيالها ذنوبتا الله سمية آد بأوين بديهين وحيالها اللوبة هي إن لا إسكجروا وحا كمضاء بالشي يعني رمضان إن لقتك صلاة dad badan baa marka waxay yeelayaan iyagoo bisha Ramadaan soomahayo ilaalinaya ayaysan hadana salaadii la iimaanay in badan baad arkaysaa dadka muslimiinta ah qaar kamid ah waligood ba hadii Ramadaan la gaaro afku waa u xireeyo waa soomahay laakiin salaadii isku daymahay taasi marka maxay noqonaysaa waxa weeye hadii bishii Ramadaan aadan tukan ee waxa la timid kaliya ay noqoto soomkaas waxba ku noqon maayo wax khayraad ka helaysa marka lama arko waxa weeye hadii dambi weyn badan baa ku jira arkaanta islaamka ay mid weyn badan kiitiirka lagu sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam amuduhu as-salaa yaani uu yiri islaamka tiirkiisu waa salaada kaasa ka maqan sida daraadeed waxa ku sugnaa xadiis imaam ahmed uu wariyay ayaa waxa ku sugnaa nabigu inuu yiri arba'un faradahum allah fi al-islam afar waxyaalo ilaahi islaamka dhexdiisa waa ku waajibiyay man ata bi thalathatin لم يغنينا عنه شيئا صدق قفكي لي ماذا waxay ka u talahayaan lama arko waxba ka deeqin haya afar saa hada saddex la timaado mid ka tagto waxay ku taraysaa lama arko hatta yaatiya bihinna jamii'an ila ayagoo dhan uu kala yimaado waa maxay as-salaah waz-zakaah wa sawm ramadan wa hajjul bayt nabigu waa salaada ila qofka hadda la soo sheego qof muslimiin moogta waa afartii rugni oo kale waa zakada waa ramadan oo la soobo وكعبة الحج مركز صلاة waxay kamid tahay arkaantii islaamka kamid ee buniyada islaamu ala 5 ayagoo waliba tiirarkii ah ayaa waxa lagu tilmaamay midka amuudka ay xataa asagu tiir dhaxaadkaaba iyadu inay tahay ka hadii la waa inuu guriga wadakaysa ma dhismahayo waa badumahayo oo kale marka sida daraadeed waa inuu qofku iska ilaaliyo asagoo soomahayo inuu salaada ka tago salaada iyo waxyaalihi kale waajibaadka waa inuu la yimaado waxyaalihi arkaanta iyo intii uu sameeynayo sidaas ayaa soomkiisu wuxuu ku noqonayaa soomkii wanaagsan oo hagaagsan sidaas uu ku noqonayaa marka sidaas ayaa soomkiisu wuxuu ku noqonayaa soom hagaagsan buu ku noqonayaa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum marka hadda muhadaradani waxa weeye waa midii sagaalaad sidaas aan ku dhameynaa wallahu a'lam